مسؤولينta dawladda hoose caasimadda Hargeysa iyo madaxda hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa si wada jir ah u shaaciyay diiwaangelinta shaqaalaha dawladda hoose caasimadda Hargeysa gaar ahaan shaqaalaha darajadoodu ay tahay A iyo B ee ka howlgala dawladda hoose caasimadda Hargeysa kuwaas oo lagu sameynayo diiwaangelin iyo qiimeyn xogtooda ah isla markaasina loo diyaarinayo imtixaanka shaqaalaha balse iminka qorshu yahay in shaqaalaha dawladda hoose caasimadda Hargeysa gaar ahaan kuwa darajadoodu ay tahay A iyo B la diiwaangeliyo kulankan oo ka dhacay dawladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa waxa goobjoog ka ahaa agaasimo waaxeedyada dawladda hoose caasimadda Hargeysa mas'uuliyiin ka socday hay'adda shaqaalaha dawladda iyo gudoomiyayaasha degmooyinka caasimadda Hargeysa waxaana halkaasi lagu magacaabay guddi labada dhinac oo dawladda hoose caasimadda Hargeysa iyo hay'adda shaqaalaha ay ka shaqeyn doona diiwaangelinta shaqaalaha dawladda hoose caasimadda Hargeysa Farxaan Aadan Haybe gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa ka warbixiyay diiwaangelinta hay'adda shaqaalaha dawladdu ay ku sameynayso shaqaalaha dawladda hoose caasimadda Hargeysa sida la socotaan kulli xeerka cusub ee lagu sameeyay kaabista iyo wax ka bedelka ismaamulka gobolada degmooyinku ayaana faraya in shaqaalaha dawladaha hoose xogtooda ay hayso hay'adda shaqaaluhu markaan si guud u sheego macnaheedu ma aha in la fahmaa muhiima inay gacanta gelinayso maamulayso iyo weedaaranayso golayaasha deegaanka ma aha arintu sidaa waayo dadku ka bad dhinac baa laga dhadhamiyaa waxa weeye kaliya ma aha dawladaha hoose kaliya xagga kalena xeerka shaqaalaha ee dawladda ee imika la yaala baarlamaanku isaguna wuxuu sheegay in hay'ado kale oo badan ay isku soo biirayaan diiwaanka guud ee hay'adda shaqaalaha marka macnuhu waxa weeye shaqaalaha A-da iyo B-da in la qiimeeyo xogtooda aan ururino database-keega lagu daro marka iyadoo taa la daba socdo kulli kulan baanu yeelanay anaga iyo maayarka iyo madaxda sare qaranka marka waxa la isla qaatay hawsha in halkaan ka bilowna Hargeysa maadaama ay caasimadii tahay marka guddi farsamaanu magacaawano laba qofna ka socdaan dawladda hoose qofna ka socdo wasaaradda arrimaha gudaha iyo xubnaha faro ka socda oo xubnaha toos hawsha saraakiisha hay'adda shaqaalaha dawladda waxaana gudoomiyaha ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda marka kaliya wajigan hore waxaanu sameynaynaa ma aha imtixaan marka la qaadayo waxa weeye waa xogtii shaqaalaha in la ururiyo la qiimeyn la sameeyo dabadna gudida tala soo jeedinaysa waxaanay noqonaysaa biidnillaahi tacaala taladay soo jeediyaan in imtixaanka lagu saleeyo gudidaasi xogtay soo jeediso qodobun baa laga soo qaadanaya oo hay'adii shaqaalihii bay diiwaanka imtixaanna way ka qaadaysaa waxa ka ballaaran qodobka inta kale ee muhiim u ah arrintanna waxa weeye xuquuqaadkii ka dhalanaya shaqaalaha in la jaangooyo la simo oo macnaha hadday tahay caafimaad jaban hadday tahay guriyeen hadday tahay shaqaalaha hawlgabka gelaya hadday tahay mushahar kordhin in laga sinaado uuna taana kolba talo la iska weydiiyo laakiin anagu qodobka muhiimkii waxa weeye in diiwaangelin la qaado shaqaalana qiimeyn lagu sameeyo waxaana la eegayaa oo kale maaha shahaadooyinka waa aragnimadu qayb ka tahay xeerka shaqaalaha sheegaya waa aragnimada xeerka shaqaalaha sheegay qofku 5 sanadood hadduu soo shaqeeyay xeerku waxbuu jideynaya anagu xeerkaas uma isagana raacina dabaqayna marka run ahaan wax adayg lagu wadayaa ma jirto talaabo kasta inuu qaadanayna waa waajib inaanu kala tashano mas'uuliyiinta u sarreysa golaha deegaanka iyo dawladda hooseba oo iska weydiina wax marka wax halka dareen ayaanu jirin taguudna inuu wada shaqeyno oo shaqadii la wanaajiyo baa looga jeedaa biidnillaahi tacaala kulli tiimku hawsha inay bilowdaan oo iyaguna ka caawisan kala shaqeysaan dewana mas'uuliyiintiina ma qaar ku jira kuway saameeynayay ayaa qaaridi ka warkiyo maxaan ku dhahdaa labada xubnood ee la soo magacaabay labadaba way ku jiraan marka biidnillah saasu man doonayaan in dareesina maanta tiimkana isbarataan kulli halkan bay joogayaan maalmaha iska jawalkooda qorshaha ay samaysteen halkan bay kala shaqeynayaan oo joogayaan wixii ka baahanayna oo fududeysan man doonayna biidnillah tacaala aadna waa mahadsantihiin duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Solteeka ayaa soo dhaweeyay hawshan iyo shaqada ay ka bilaabayso hay'adda shaqaalaha dawladda xarunta dawladda hoose caasimadda Hargeysa waxaana maayarku tilmaamay muhiimadda uu leedahay qarankan iyo shaqaalaha dawladda hoose caasimadda Hargeysa runtii markii lagu sameeyay kaabis iyo wax ka bedel xeer number 23 qodob baa ku jira shaqaalaha A iyo B inay xogtooda hayso wasaaradda hay'adda shaqaaluhu taasi oo noqonaysa in la fuliyo xeerka
waxaan isla qaadanay in xogtii A iyo B annagoo uba baahan inta kale ka hadhay C iyo D-dana in insha Allah taala computerka iyo si muxuu ahaa database-kiina si loogu eego ay noqoto in la wada diiwaan geliyo aad baan u soo dhaweynaynaa mas'uuliyiinta loo xil saaray guddiga ka tirsan iyo dhammaan agaasimayaasha iyo guddoomiyeyaasha ay shaqaalaha dhan khuseeyaan waxaan halkan ka faraynaa inay si habsami leh ula shaqeeyaan sidii ay xogtaasi u wada sugmi lahayd waxaa la qaadi doonaa insha allahu tacaala marka hore xogta mar labaadka marka la diyaariyana waxaa la qaadi doonaa imtixaan darajada A iyo B darajada A iyo B baa lagu salayn doonaa markaasaa wixii dhacana go-aan laga gaari doonaa shaqaalaha waa muhiim inay xogtooda sugnaato oo la sameeyo xog sugan oo ay hay-adaho dhan ka warhayaan hadday dawladdii hoose tahay inagoo hore uga warhaynay iyo hadday tahay hay-addii shaqaalahaba aad baa u mahadsantihiin waa soo dhaweynaynaa mas-uuliyiinta ka socda hay-adda shaqaalaha kastoo agaasimihii gobollada iyo degmooyinku inaga maqan yahay oo isna ku jiray guddidoo soo socda hadda gabagabadii kulankaasi mas-uuliyiinta dowladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa madaxda hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland la wadaagay xog dhameystiran oo ku saabsan shaqaalaha dowladda hoose caasimadda Hargeysa. Waa Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur, Yacawil Cabdi Kaahin, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Hargeysa.